nacab darta ciirsimode canabey ol iyo nacab darta ciirsimode wiish baan cuskadayo xirka iga duule wiish baan cuskadayo xirka iga duule tulusa dhibaatada alla caadil weye igu caydin wareegsanay tulusa dhibaatada alla caadil weye igu caydin wareegsanay وري عبد الفتاح اسماعيل عرش وهلكن ugu soo gudbinaya xog dhaba oo aad sida aad ka daalacaan doontaan ama aad kala socotaan qaybta aanu ku leenahay ee muuqaalada ee TV-ga ee shabakada barnaamijnews.com oo alaaba aan ugu soo gudbinay xogaha kala duwan daawadayaal maanta waxaan halkan ugu soo gudbinaynaa xog ka duwan waxyaabihii hore ee ugu soo bandhigi jirnay macluumaadka xagga siyaasadda hasa yeeshee kastoo siyaasaddu ay leedahay wajiyo badan iyo noocyo badan oo hirdanka iyo damaca siyaasadda ay tahay mid markasta isbedesha daqiiqad kasta oo aan had iyo jeer ahayn mid meel fadhida daawadayaal waxaa halkan xogtaasi ay ka turjumaysaa ama ay daaran tahay xog aan siyaasadda hadda waqtigan ka dhex taagan xisbiyada mucaaradka iyo kuwa muxaafadka ee xisbiga kulmiye ka mid yahay iyo xisbiga ucud iyo xisbiga wadani ka duwan daawadayaal xogtan oo aanu ka soo aruurinay meelo kala duwan oo iyo ila fara badan oo ay ka mid tahay xagga xukuumadda ee ka dhow ama u dhow dalaba madaxtooyada iyo gaar ahaan xagga xisbiga laftigiisa kulmiye ee murashaxa xisbiga Muuse Biixi Cabdi iyo ku-xigeenkiisa Maxamed Kaahin sidoo oo kale daawadayaal waxaan kula halkan ku haynaa xog kale oo iyaduna taas la xidhiidha beesha habar jecla iyada laftigeeda oo uu ka dhex bilaamay khilaaf ayaan ku soo qaadan doonaa tusaalayaal barnaamijkeenan ee xogta naga codsadeen inaanu baahin ama aanu halkan ka sheegin magacyadooda bartaanu ka soo helnay xogtaas iyo inaanu cod ahaan inugu soo gudbino haddaba xogtaas daawadayaal anagoo ina soo aruurinay ayaa waxaa halkan igu soo gudbina daawadayaal waxaan ogeydeen xisbiga kulmiye ee talada dalka haya ee uu ka soo baxay madaxweynaheena محمد أحمد محمود سيلايو تلا دلك هيا إنه إنتي من هو سيلايو حلك هيا إسرائيل يحسب بجيسا وخلاف دير ودبدير وشيتني إسرائيل كل هزي وسيرة iyo gudoomiyaha iyo ku-xigeenka iyo xubnaha kale madaxda ayaguna xisbigaasi badan intii madaxweyne Soomaaliya dalka hayay uu soo maray oo ka dhex taagnaa ee uu kala qaybsanayay garabi hase yeeshee daawadayaal sidaas darteed madaxweyne Soomaaliya waxa uu khilaafka dheer soo jiitamay oo isku hayeen damaca dhinaca muraacida u noqonaysa murashaxa ayaa waxaa hore sideen haddaynu aynu marka hore soo qaadano bilowgii xisbiga kulmiye waxaa Muuse Biixi murashaxnimada ku haystay garab ka ay hogaaminayeen wasiiro xilliga ugu tunka weynaa dowladii madaxweyne Soomaaliya
وكمد ها وسيرك مدحتويدا حرسي علي حاج حسن وسيرك هوري مالية عبد العزيز سمالي وسيرك هوري أرميها الدبدة محمد بيحي يويس إيوه وسيرك سبنا عدالة حسين وسيرك هولها جود خليف إيوه وسيرك لا أيوه يحملك لا حكومة كتير أيوه دين الله ها أيا وهاي إلى أكلنا أي كلا هاين مدح قدومية حسبك مصبيح عبدي محمد كاهن حسين شيخ خلاف كاس مدح ولكن مركور السعودي قرب كان سمالي حسيه حسين شيخ مركي دبو راعي هدنا قرب كان كلا مصبيح عبديو كدب wuxuu khilaafkaasi daba dheeraado jiitaba waati madaxweyne Siinayo oo halka aakhir u dambeysay oo yiri musabbix lagu daba safto oo halka la doonayay in uu ku damiya khilaafkii si hasayeeshe halkaas musabbix iyo xukuumadda kala socday waxa kala socday wasiirka madaxtooyada maxamuud xaashi cabdi oo waqtiga ahaa wasiirkii wasaaradda duulista oo laftigiisa isaguna contender 3 sano ah khilaafka markuu musabixiya raacay kadib contender ku yaala madaarka agtiisa ay ku xuleen garabkii xiliga awoodda badnaa ee xisbi hogaaminaya iyo wasiir Samaale iyo maxamed biixi yunis oo kooxdaas musharax u ahaayeen Samaale iyo maxamed biixi yunis asay sheemad Siinayo waxa uu lugta u qabtay oo aakhirkii u dambeysay raacay musabbixi maxamed kaahin iyo وزير محمود حاشد كتب وزير ده وكل حكومة ديسك السلي وكين مركز تاسيد عليه مدح ولا السلاية وحا وزير كمدح تويدا كده محمود حاشي عبدي حلي بان على مريحان أو أها حلي بان وحلا مقعد وزير كهوله حصي شيء دمع عاص فراها بدن حزب وكرمية صومري waxa ayaa wajiye badnaa hadaba xogta kale ee hadda iyo xaaladaha kale ee hadda ka soo dhex isboonaaday xukuumadda madaxweyne Siinayo hogaamiyo iyo xisbiga kulmiye ayaanu halkan ugu soo gudbinaynaa macluumaad ku dhow macluumaad dhab oo isku haleen karo oo xaqiiq ah oo aanu soo aruurinay دولة الوزير كمدحتويدا محمود حاشي عبدي oo hore u sheegay inuu damac leeyahay siyaasadeed ayaa hadda waxa uu bilaabay oo ka dhan ah inuu raadinayo gudoomiyaha xisbiga murashaxa uu ka yahay Muuse Biixi Cabdi oo uu doonayo in hadda lagu wareejiyo isagoo lacagta saldhiga بربرة إمارات كعرب حكومة إيش كلا شيء إيوه دعتي دي بي وو حقوقا لك يوسف فرسموني كلا أو يلفتقي لديه شيء سلا وهرجين تولا واسكسيو أما سجى وجرها أما سجوا قاطع إنك تاسو أو سامع يسو يسوق حلي قال يسوق أود يتبضن ملحتويدا دعتك وحياه أيا هذا بلابي إنه ترى رافيو أما ودعتك كسارو gudoomiye ku-xigeenka mujaahid maxamed kaahin oo in badan iyo waqti dheer la soo halgamay Muuse Biixi Cabdi halkan la soo gaarsiiyay Muuse Biixi Cabdi kana badbaadiyay duufaanadii faraha badnaa ee lagu soo qaaday hase yeeshee wasiir maxamuud xaashi waxa uu abuuray waji kale ka duwan sidii uu u dagaalamay ama garabkii wasiir كيني هو أي مدحتويدا على حرسي أو إسقو عن سياسة ديسو كل سنين وحلا يلاهدو قبيل
iyo inuu beesha habar jeclo madaxa isu geliyo isaga nooca mahe ee siyaasadiisu waxa ay mid ku dhisan hirdanka xisbiga dhexdiisa iyo cidda taageersan isaga habar jeclo dhexdeeda inuu ka kasbado hase yeeshee wasiir maxamuud xaashi oo markii hore ku guulaystay inuu garabkii xirsiyo ku jabiyo waxa la yiraahdo maxamed abakar iyo muuse abakar waa markayagii oo uu garab dhalinyaro fara badan ay u abuuray taas oo inta badan ay beelaha muuse abakar laftigooda iyagu lahaayeen waa markayagii taas oo xirsi laftigeeda uu isagu u isticmaalay dagaalkii xirsiyo in xaashi hase yeeshee iminkana waxa uu bilaabay weji kale oo markii hore ee u gashay uu isiri maantana mar 20 ayay guushu ku jirtaa ee balkuday wasida ay xogtu inoo sheegay xogahaasi waxa ay noo xaqiijiyeen in uu maxamuud xaashi uu sameeyay si uu qalaynka inta doorashada la gelin ee la gaarin muuse biixi uga qaado guddoonimada haddii uu waayana uu muuse biixi maxamed kaahir laftigeeda uu ka baqaayo oo ay ku adag tahay inaan toos u wajaho maxamed xaashi ay ku adag tahay oo uu isleeyahay taas mid aad madaxa aad u dhigan kartid oo aad bareeri kartid ayuu taa laftigeeda isagu og oo maxamed xaashi aan bareeraha laifka aanu aqoon ee ay tahay mid uu had iyo jeer ku gabado oo ciyaal yar oo hore siyaasadda uu uga soo qaybgeliyo ama xil qaban uu isticmaalo oo capacity-goodu aad u yar yahay ayuu had iyo jeer maxamed xaashi siyaasaddiisa ku dhisan tahay oo had iyo jeer xagga ciyaalka ayaa oo sir wal iyo xog walba u keenaya oo maxamed xaashi samaystay ayuu samaystaa oo hadda saad arkaysaan wasiirada gaashaandhiga sidoo kale agaasimayaasha yaryar oo kale waxaasoo dhan isaga maxamed xaashi waa ciyaalka sirta u keena wax walba waxa xitaa heerkoodu waxa ay ku hadlayaan u keenaya oo hore xil u qaban ayuu maxamed xaashi siyaasaddiisa ku dhisan tahay hase yeeshee maxamed xaashi geesta kale waxa uu dagaal ku qaaday oo uu bilaabay oo bilow u tahay in uu burburiyo beelaha habar jeclo gaar ahaan waxa labada garab ee habar jeclo ee maxamed abakar iyo muuse abakar ayuu maxamed xaashi hadda bilaabay si uu laba daran mid dooro ayuu maxamed xaashi bilaabay haddaba maxamed xaashi siduu wejigaas u isticmaalo waxaa jirtay guddi xalay sheegatay guddiga guud ee beesha reer daahir ee lagu soo doortay gar adag daawadaya guddidani maaha guddigii rasmiga ahayd ee beesha habar jeclo weyno ee ilaa ka jilib ilaa ka han Somaliland dal iyo dibad meel kasta oo ay joogto ay isugu timid xilligii madaxweyne Siilaaya murashaxa ahaa ee lagu soo doortay shirkii gar adag guddidan ma aha daawadayaal waxaa guddidan sameeyay wasiirka madaxtooyada maxamuud xaashi cabdi taas oo uu sameeyay sababo guddidaas daawadayaal aan halkan xalay hadlaysay ee ay ku hadashay beesha habar jeclo weyne ama habar xabasho weyne guddidii lagu doortay shirkii gar adag ee beesha habar jeclo waxaa guddoomiye u ahaa allaha u naxariistee gaari jiid oo ka soo jeeday beesha udurxumeyn ee muuse abakar ee gobolka Sanaag kadib simaw markii uu dhintay kusina waxaa laga dhigay ina Cumar Aadan Dibi oo reer daahir ah kadib guddidii shirkii gar adag waxay iska dhex dooratay guddoomiye taas oo guddoomiyaha ay doorteen inuu noqdo oo uu bedelo alla u naxariistay jagadii gaalijiid ee guddoomiyaha beesha habar jeclo loo cumaamaday
diiriye jaamac oo ka soo jeeda beesha cibraan ee habar jeclo hase yeeshee daawadayaal guddidan imaka xalay hadlaysay ma ahayn guddidii xilligaa garaadag daawadayaal guddidan xalay wasiir maxamuud xaashi oo bilaabay waxa la yidhaahdo muuse bakriye ama muuse bakor oo uu welina gaar ahaan aada ugu dagaalamaya oo dirxmiin iyo waxaas kuma jiraan oo dirxmiinku had iyo jeer waxay ilaalayaan macrajka ama habarjacanimada iyagu aad wadada ugu adag qadiyada noocaasa oo shilimaan ma siistaan hase yeeshee daawadayaal waxa uu wasiir maxamuud xaashi oo raggan xalay hadlayay ka mid ah oo guddida sidaad idinkuba u arkayseen xubin ku hadlaysay afka guddiga beesha habar jecla gara adag oo aan ahayn guddidaas meel aan ka soo gashanaan jirin waxa weeye xubintan cali bare ee wasiir maxamuud xaashi maadeerka yihiin wasiir maxamuud xaashi isaguna cali baraa waa dilaal ka shaqayn jiray iibka ariga oo dilaal ayuu ka ahaa saylada xoolaha ee burco oo kale iyo berbera marka xubintaasi cali bare nina waa nin isagu markii hore wadani ka tirsanaan jiray laakiin laga saaray oo in xaashi ka saaray taasoo uu kaga faa'iidaystay fursado dhinaca kaga furnaa ama mushkilada kaga furnaa dhinaca xaafadiisa ka jirtay oo isaguna ku hadlayay guddidan oo sida iyagu ay sheeganayaan midna waxa weeye wuxuu ahaa cabdi caga oo bahmajeela ah oo yar oo ka mid ah qoys yar oo reeraan yar oo musabbarku ku soo musabbarka marka daawadayaal maxamuud xaashi isagaa sameeyey nimanka kadib daawadayaal doorashadii waata dib muddo golaha guurtida u dhigeen ilaa bisha 11aad hase yeeshee daawadayaal wasiirka madaxtooyada maxamuud xaashi cabdi ayaa hadda bilaabay arrin ah inuu dhaqdhaqaajiyo oo uu doonayo in muuse biixi uu ku wareejiyo guddoomiyaha xisbiga kulmiye isagoo oo doonaya in wasiirka madaxtooyada maxamuud xaashi uu ka qaado jagadaas oo uu dagaal ku qaaday ama dagaal uu hadda doonayo inuu ku wajaho guddoomiye ku-xigeenka xisbiga kulmiye maxamed kaahin axmed hase yeeshee guddidani waxaa soo diray oo soo abaabulay oo arrinta ka dambeeya wasiirka madaxtooyada maxamuud xaashi cabdi sidaanu xog dhaba oo aanu ku hayno oo xitaa lacagta bixiyay warbaahinta iyo ay ku hadlayaan iyagana lacag u qaybiyay waxa kale oo aan doonayaa inaan ka hadlo arrinta siyaasadda waxa weeye reeruhu telefishinada ka hadlaan iyadoo magac xisbi iyo wax lagu hadlayo annaga harena loo kama baran haddaanu nahay guddida beeshaasi inaanu ka hadalno inta badan arrimaha siyaasadda waxa maanta kalifay qabya noo muuqatay reerkana waa yeelkiisii baanu nahay mas-uuliyad baa naga saaran inkastaanu siyaasadda rag noogu maqnaayo aanu u diranay ku mashquuleen laakiin tii reerkaanu anagu ka hadlaynaa waxaanu leenahay marka uu ka hadalka loo yiraahdo oo kadaloob wax lagu cuno kadaf loo socdaa baa jirta baa la yiri waa maanto kale doorashadii waa la mudeeyay muddo yar baa ka hadhay anigu toos xisbiga oran maayo kulmiye waa badan yahay oo beeraha Soomaaliland oo dhan buu ka kooban yahay oo laakiin maamulkiisa cid baa leh cid baa baadi doona oo wax rabta waa muuse aduu wax doonayo sidii uu reerka hare ugula macaamilay ee codka reerka uu ka soo jeedaa u siiyeen reerka ee loo wada hadlay
wax loo xariiqay aan reerka dhexdiisa habar jeclo ku milmin sidii uun baa laga rabaa oo aanu ka doonaynaa muuse waxaad moodaa inaan muuse dabaan dhuxul lahayn kulaalayaad moodaa wiish baan cuskadaayo cirka idila duule wiish baan cuskadaayo cirka idila duule dhibaatada alla caadil weye igu cayhin wareegsani culusa dhibaatada alla caadil weye igu cayhin wareegsani badan uu isticmaalayo wasiirka madaxtooyada Maxamuud Xaashi Cabdi uu ka dhex bilaabay ama bilowga sasaanta khilaafka beelaweynta habar jeclo ee Muuse Bakar iyo Maxamed Bakar ka dhex bilaabay oo halka ka dhex istaaray si ay ugu fido beelaha kale ee uu kulmiyo magaca habar xabasho ayaa hadda xogtaas ku saabsan halkeen ugu soo gudbinayna sidoo kale daawadayaal ee wasiirka Maxamuud Xaashi oo wasaaradda madaxtooyada jooga oo madaarka soo joog jiray oo lacag fara badan oo uu heshiis kula galay xagga madaarka xitaa marka la eego iyo lacagta DP World uu isticmaalaya sidoo uu jagada uga tuuri lahaa ama uga takhalusi lahaa mujaahidka Maxamed Kaahin Axmed ama istustay Maxamuud Xaashi inuu hadda uu كل إكرا أما وكتشي إكرا لعب واسد أرتيلا حبت نبتها أنو هلاي أنو مرب كدور كسوحي جني أي تماماً حسين الشدة وضيال خلاف كان أيات أي هدي أي أرتني أو أي ورجشة أو سكود يا سبب أمريكي هورك وقوليستي إنه شجرة كسارة ماشى سبب أو قرب سينا يا مصبيحي يا محمد كاهن wasiirka hore ee madaxtooyada iyo wasiirkii arrimaha dabadda Maxamed Biixi Yunus iyo Soomaali ayaa haddana mar laba waxa ay hawada iyo layda yar ee riyada ah ay mar labaad Maxamuud Xaashi tustay astaan ah in uu haddana mar kale kuwana jabi karay hase yeeshee arrintan ayaa madaxweyne Siilay haddii uu ama habar jeclo ay talaabo adag ka qaadan wada ama ay arinta ka hortag wada waxay ku keeni kartaa arin aad u khalis ah hase yeeshee xukuumadda madaxweyne Siilay laftigeeda ayaa iyadana waxa soo ku dhici karta khalkhal haddii arintan uu Maxamuud Xaashi hadda u xarka xirtay ay hirgasho wax badan oo jiray oo naga dhaxeeyay baanu ka tabaynaa wada shaqayn baanu ka tabaynaa waxaanu taana aanu wax weeyaan soo jeedinaynaa haddaan wax laga bedelin sida ay tahay inaanu ka tashan doono haddii Ilaahay ka dhigo gudidii guud baanu nahay annaga iyo suldaanka guudun baa arintan reerka ka hadli kara waxna la ka weydiin karaa iyo wax garadka kale taas waxaanu doonaynaa haddii Ilaahay ka dhigo ma hayno hadeerto sidana madowgana ku sii jiramayne inuu arin la iscadeeya oo imaka hadeerto aan tiifiga ka sheegayno aanu tabayno aan dhul badan ku wanaagsanayna annagana wala kama baranayno tiifiga ka hadalo oo imaka hadeerto aan tiifiga ka sheegayno aanu tabayno aan dhul badan ku wanaagsanayna annagana wala kama baranayno tiifiga ka hadalo laakiin hadeerto waxa weeye waa hadlaynaa wixii runna waa sheegaynaa indha dambe ka qarsan mayno marka waxaanu ku baaqaynaa si dhaqso leh haddaan wax arrimahaana looga qabanin oo aan
wuxuu mudan yahay reer kala dhigin kuma sii jiri doono shirna waa ka yeelan doona insha Allah ta'ala degdega inkastoo maxamed daawadayaal xogaha helay oo faraha badan waxay noo sheegayaan in heshiiskan dhex maray wasiir maxamuud xaashi iyo injineer faysal cali walaabe uu soo bilaabmay waqti hore oo isaga u qorsoonayd oo arrintaasi uu hoosta ku haystay taasina ay keentay xitaa khilaafkii ka dhex dhacay musharaxii xisbiga ucud ee xilligii ururada ka soo saaray badbaadiyey xisbiga ucud jamaal cali xuseen arrinta sababtay in faysal cali waraabe uu jagada ka tuuro ay xitaa ahayd arrintaas u qarsooneed wasiir maxamuud xaashi cabdi oo xitaa qorshahan uu aad u dheeraa oo uu soo bilaabmay waqti hore oo intuu ahaa wasiirkii duulista oo ka qayb ka yihiin agaasimaha duulista iyo rag kala fara badan oo ciidagala ah ayaa iyaguna laftagooda jira oo connection fara badan oo isku xidhan oo qaarkood xitaa shacab yihiin oo uu ilaash samaystay markii wasaaradda duulista laga raray suuqa dhexe ee la geeyey airportka iyaduna arrimahaas xitaa qayb ka yihiin sidoo kale waxaa jirta daawadayaal arrimo fara badan oo xitaa arrimaha bulshada ururka soolyo ay dhahdee inkastoo aan xogtaa kasii hor dhacayn uu isaga laftigiisu uu qayb ka ahaa maxamuud xaashi sidoo kale gudoomiyaha garabka dhalinyarta ku-xigeenka ah oo weli kasoo jira beesha reer yunis maxamuud xaashi qayb buu ka yahay wasaaradaha xitaa dhalinyarta ka howlgasha ayuu reer u kala saaray oo ninkii maxamuud xaashi aan raacsanayn waa laga tuurayaa meesha sida oo kale magacaabisi maanta uu sameeyey dad badan oo ayaa ku hoos jiray oo isaga u shaqeeya oo ugu talagalay qaar xisbiga kulmiye qaar xisbiga wadani garab xirsiyo kale siday ay formashikiisa soo siiyaan hase yeeshee xogtan aynu haynaa waxay tilmaamaysaa in heshiiska u qarsoon faysal cali waraabe iyo wasiir maxamuud xaashi ay tahay taxaqiiqda ah ee uu doonayo in uu wasiir maxamuud xaashi labadaa dhinac ee baalaha uu kabudda ka dhex ciyaaro isagoo oo kale waxaa xogtani noo tilmaamtay in uu boqorka buurmadow uu og yahay taasina ay sabab u ahayd ammaantii uu maalintii dhawood ammaanayay faysal cali waraabe oo ay qorshaha tahay marka ugu horeysa maxamuud xaashi iyo buurmadow iyo rag kaloo fara badan iyaga laftooda laga sheegay oo halkan aan magacooda kasii sheegayn aan jecelahay inaad dib kasoo gudbiyo xogahaas dadkaas ee ku arrimaha ku howlan sidee ay beesha habar jeclo ay u kala dhantaali lahaayeen welina waxa ay bilowga ay tahay ee hawsha ka soo bilaamaysa marka ugu horeysa in reerka Muuse Bokor lagu shubo xisbiga ucud waa sida xogta xaqiiqda ah ay noo sheegeen yaan cidi been ku sheegin beesha cidda xukunta ama afkeeda ku hadli karta ama go'aankeedu ka go'o waa gudida beesha iyo suldaanka guud iyo salaadiinta kale iyo waxgaradka reerka oo dad dhacameed baa la yiri siday u kala sareeyaan baa loo guraa waxaanu leenahay waxna waxa weeye siyaasad waxna waa wax Somaliland ay ku dhaqanto oo dhaqan inoo ah marka cid wax doonaysa ay samayso cidii ay wax ka doonaysay ay weydiisato waxaanu leenahay ma hayno reerkuna sidan ku sii jiri kari maayo madowna lagu kaxayn maayo bahasha cadaan bay noqonaysaa ku daraya reerka aanu u tirinayno maanta inuu dhiil ku culan yahay sheekh iyo shariif markan sheekh iraaho shuruuqdoodii iyo salaadiintoodii intuba telefishinkay taagan yihiin waxay ku hadlayaan wax annagu aanu
odhan karayno maaha. waxaan leeyahay nin baa yidhi bilow la noolaa. waxaanu leenahay Soomaaliland waa jiraysaa waana la noolaanayaa. waxa aynu odhanayno aynu u fiirsano. beeshuna go'aankeeda waxa iska leh sida hore loo sheegay annaa sheegay gudida guud iyo suldaanka guud iyo salaadiinta kale iyo waxgaradka reerka. haddii arrinkan madow ku sii socdana tashi baanu ka yeelan doonaa. wassalaamu calaykum. waxba kamay qaban. waxaanu ka codsanaynaa xukuumadda qurba joogta beelaha aanu ka soo horjeedno ee habar jeclo ganacsatada aanu ka soo jeedno beelaha habar jeclo in waxaan kaloo halkan baaq uga dirayaa hoggaanka xusbiga kulmiye oo uu guddoomiye ka yahay muuse biixi cabdi kana yahay musharaxa xusbiga madaxweynenimo ee xusbiga kulmiye. waxaanu leenahay muuse systemka shaqo ee aad wado maanu garan. sida oo kale waxaa jira guruubyo aan xukuumadda u shaqayn oo wasiir maxamed xaashi u shaqeeya oo u badan beesha biciide. welina waxaa haddii arrintan ay dadka ama dhalinyarta ama bulshada rag iyo haweenba noqdee beesha habar jeclo dhexdeeda ay arrintan iska qaban ee kala qaybinta ee wasiir maxamed xaashi ciyaal yarar oo dhalinyaro ah oo weligood xil ama wax arag oo gaari kor loo iibiyey uu kaga faa'iidaysanayo oo wada qorshe la yidhaahdo muuse abakor iyo maxamed abakor oo xitaas xogahaas waxay noo xaqiijiyeen iyalkaas oo capacitigooda aanu lahayn waxyaabaha qaarkood qaadi karin xagga dowladnimo ay qabiil ku shaqaynayaan oo muuse abakor iyo maxamed abakor la isku dirayo. welina dhalinyartaas waxay u badan tahay beesha biciida sida xaqiiqda dhabta aan ku hayo. taasna waxay nii sheegayaa haddii ay keenayso sida xogahaas ii sheegeen ee aan ka soo xiganay iyo rag waxgaradka iyo aqoon-yahan ka tirsan beesha habar jeclo haddii wax laga gaadhin oo ka digtoonaan beesha habar jeclo dhexdeeda inay cawaaqib xubo ku keenayso burbur iyo kala dhaqaaq isku duwantii habar jeclana ay ka bixi doonto meesha. haddii aanad wax ka bedelin waqtiga dhow ee soo socda beesha waxaa u taliya suldaanka guud iyo guddida guud ee beelaha habar jeclo ee garadag. waan u talinaynaa beesha haddii aanu fahmi weyno systemka iyo nidaamka uu ku shaqaynayo xusbiga kulmiye. iyadana ilaahu rabbigood oo aslax khayr qaba nooga dhig. waxaan ka wanaagsan nabadgelyo ma jire. waa sidaa odayaasha hore u hadleen. odayaasha horuman ku raacsanahay. waxaan leeyahay dee baarlamaankaba mooshin baa la hor keenaayo dabeedna waa la ansixiyaaye sidii annaga madaxweynuhu noo ansixiyey yidhi waa sidaa reerku dee halkii unbuu yaallaa. laakiin ninba waa wadaanta wixii uu ku gurtaa. ninba waa wuxuu wadceelka ku gurtaa. ninba ceelkii uu macsaday buu ka cabbi doonaabaa ninkabay ku tiri. subeeygu hadduu kaa khaldamo waad ka samirtaa waayo dilduloolinta waxaa iman doontaa nin waliba in uu ku hadlo afka uu doonayo iyo sida uu doonayo uu socdo waayo dilduloolinta waxaa iman doontaa nin waliba in uu ku hadlo afka uu doonayo iyo sida uu doonayo uu socdo. iyadana ilaahu rabbigood oo aslax khayr qaba nooga dhig. waxaan ka wanaagsan nabadgelyo ma jire. waa sidaa odayaasha hore u hadleen. odayaasha horuman ku raacsanahay. waxaan leeyahay dee baarlamaankaba mooshin baa la hor keenaayo dabeedna waa la ansixiyaaye sidii annaga madaxweynuhu noo ansixiyey yidhi waa sidaa reerku dee halkii unbuu yaallaa. laakiin ninba waa wadaanta wixii uu ku gurtaa. ninba waa wuxuu wadceelka ku gurtaa. ninba ceelkii uu macsaday buu ka cabbi doonaabaa ninkabay ku tiri. taasna ayna jiri dambin nin dambe oo habar jeclo oo magacaa siyaasadeed u hirgeli kara. sidoo kale xogtana waxay noo sheegtay oo xaqiijisay in burburkaasi aanu uu ku iman karin gudoomiye ku-xigeenka maxamed kaahin ee ay beelahaan agaha la geli doonaan. sida oo kale waxay sheegeen xogaas waxay tibaaxeen haddii
madaxweyne axmed maxamed silaayo oo hadda awoodii kuwa aan moodin dhammaan dusha ka wada saaray wasiirka madaxtooyada maxamed xaashi aanu arrintaas wax ka qaban oo aanu hantida ummadda ee loo isticmaalayo burburinta xisbiga kulmiye iyo beelaha habar jeclo ay keeni karto in xukuumadda madaxweyne silaayo caqabad ku noqoto sida oo kale ay baalmadow ku tahay taariikhda dambe ee madaxweyne silaayo madaxweyne silaayo waxa ay sheegeen in mar labaad ay dushiisa laysku haysto oo ay wasiir uu xil u dhiibay oo ummadda u shaqaynayay uu hantidii ummadda dhexdiisa rag kuga dagaalamaya dusheeda sida oo kale waxay ka digeen oo ay sheegeen in xaquuqalanka maxamed xaashi ee DP Wall laga qaaday iyo saldhigga isagana ay jiraan xooga lacag carabta uu si gaar ah oo hirgelinta waxaan ay uu soo qaatay oo aan iloween oo akoon lagu shubay akoon ma u dhigteen oo ay laftigooda jiraan rag si hoos si dadban oo aan la shaqeeya ay lacagtaasi keenayso taburburka u horseedi doonta beesha habar jeclo oo taasina ay bilow tahay dagaal adag oo maxamed xaashi uu ku qaadi doono xisbiga kulmiye gaar ahaan murashaxa Muuse Biixi Abdi oo uu doonayo in uu masaxo haddii uu guddoonimada ku wareejin waayo hadda waa sida hadalka u dhigeen hase yeeshee guddidan sida dhawaaqeeda ka idinka muuqday waxa meesha iyadana khatar ku ah sanduuqda guud ee ay sheegeen in ay arrinta kula socoto haddii ay taasi jirto waxa iyadana halis geli kartaa in sanduuqda guud ee habar jeclana meesha ka baxdo haddii ay siyaasadda hirdanka ragga habar jecla ee wada siman ay soo kala dhex gasho oo ay kala hiiliso taasina ay tahay halis oo ay ka baxayso dhexdhexaadnimadii iyo in ay dhex u noqoto ummadda ka soo jeeda beesha habar jecla sidoo oo kale xogahaas aan waxay noo tilmaamaan in suldaanka aan weli isaga laga warsugayo maadaama ay weligeedu yidhahdaan suldaanka aan soo diray sida oo kale xidhiidh aan la sameynay oo khadka telefoonka oo gacanta aan garaacnay suldaanka telefoonkiisa wuxuu ahaa lama heli karayo oo waanu garaacnay wasiirka laftigiisa telefoonkiisa wuu xidhnaa waxbaan isku daynay inaan wax ka weydiino iyo murashixii xisbiga kulmiye Muuse Biixi iyo maxamed kahina iyaguna safar bay dibadda iyo Nairobi ugu baxeen sida oo kale waxa tani u tahay bilowga khilaafka beelaha habar jeclo ee dhabta aan hayno oo taas waxay ka digeen in ay dhaafsis in ay jirin guddidani ay tahay guddidii habar jeclo ee lagu soo doortay shirkii gar adag aanay ku jirin gabi ahaanba ay tahay guddi uu dhawaan sameeyay Muuse ninka la yiraahdo wasiir maxamed xaashi abdi taas waxaa ka digeen xogaasi in khatar ku tahay burburkaasi oo ay ka feejigsanadaan dhalinyartaas ninka u shaqeynaysa ee xitaa ay sabab keentay hadduu yiraahdo wax kasta oo reerkooda uga soo waramaya oo ay arrintu ahayn ina kaahin oo kaliya ee burburka habar jeclo oo bilow u noqonayo ayay xogahaasi noo sheegeen sidaas iyo nabadgelyo iyo cabdifataax ismaaciil arshal oo leh xogta dambe ee kooxaha u shaqeeya maxamed xaashi wiishbaan cuskadayo cirka ila duule dhibaatada alla caadil weye igu cayn wareegsanay culusa dhibaatada alla caadil weye igu cayn